halkan waa Bahda TV warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Bahda TV ayaa sheegaya in shirka la qorsheynayo inuu ka dhaco teendada Afisiyoni ee magaalada Muqdisho ee madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada u dhaxeeya uu wajahayo caqabad keeni karta inuu baaqdo ama dib u dhac ugu yaraan. Sidee ayuu xilligan suuragal ku noqonayaa in shir beesha caalamka ay soo abaabushay uu baaqdo? yaase ka dambeeya in shirkaasi uu baaqdo? Dawladda Soomaaliya kaalin intee la eg ayay ku leedahay maqnaanshaha madaxda dawlad goboleedyada xilligan uga maqan magaalada Muqdisho? Ma dhabba in musharaxiinta mucaaradka ay gadaal ka riixayaan baaqashada shirkaasi? xogahaasi oo xasaasiga ayaad ku daawan doontaan warbixinteena. Fadlan daawade haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro subscribe, share, like, siina share gare si ay u ogaadaan xogaha dalkeena ka jira. sida aan xogta ku helnay madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad uga soo horjeeda in uu markaasi shir ku galo teendada Afisiyoni isagoo taasi u arka in ay si weyn u dhaawici doonto sharciyadiisa. waxaana jira isku dayo dhowr ah oo Farmaajo shirkaasi uga warwareegayo. xogta aan helnay ayaa sheegaysa inuu jiro qorsho madaxweyne goboleedyada raacsan Farmaajo sida Cali Guudlaawe, Qoorqoor, Laftagareen looga dhaadhicinayo in ay shirkaasi diidaan oo ay dalbadaan in lagu qabto madaxtooyada Soomaaliya sidii horey u dhici jirtay. Qoorqoor iyo Laftagareen ayaa wali markaasi soo gaarin magaalada Muqdisho, halka Guudlaawana oo markii hore ku sugnaa uusan wali shirkan ka hadlin. shirka teendada Afisiyoni waxaa dalbaday Axmed Madoobe iyo Siciid Deni oo sheegay inaysan aaminayn Villa Soomaaliya. waa haddii sida markaasi hadda la isku dayayo ay suurto gasho oo ay diidaan qaar ka mid ah madaxweyne goboleedyada, halka ay markaasi mugdi weyn gelin doonto qabsoomidda shirkaasi. haddii qorshahan uusan hirgelin, waxaa jira qorsho labaad oo Farmaajo xilligan uu dabada ka riixayo oo ah in shirka uu noqdo keliya xaflad lagu saxiixo heshiiskii Baydhabo 16 ilaa iyo 15 Febraayo ay ku gaareen guddiyo ka kala socday dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka. sidoo kale waxaa xilligan jira qorshayaal iyaguna heshiiskaasi kadib ay la yimaadeen dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, waxaana markaasi xilligan shuruudahaasi ka mid ah ay soo bandhigeen in madaxweyne Farmaajo uu saxiixo warqad oo markaa ku shaacinayo in xilkiisa uu dhamaaday oo uu yahay xil gaarsiin. labo, in wixii sharciya oo baarlamaanku ansixiyeen kadib 27 December sanadkii hore xilligaasi oo dhamaaday muddaxileedka baarlamaanka laga laabto gebi ahaanba. in markaa amniga doorashooyinka laga wada hadlo wixii Muqdisho ka dhacay 19 bishii hore aynu ka soo gudubnay, markaasi oo la weeraray dibadbaxayaal iyo musharaxiin mucaarad ah oo lagu rasaaseeyay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. macadda sida uu xaalka noqon doono, hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa rumaysan in haddii xalana uu ku galo ay ka dhigan tahay inay luuntay sharciyadiisii madaxweyne oo weli u aaminsan yahay inay jirto, ayna markaa ku tahay bahdil aad u weyn. dhinaca kale, xaaladda siyaasadda Soomaaliya oo xilligan iyaguna markaasi dalalka shisheeye ay si aada markaa gadaal ugu riixayaan oo inta badan ay ka soo horjeedaan sida markaasi doorashooyinka dalka xilligan loo wado. waxaana markaasi dalalka xilligan xaaladda Soomaaliya faraha la soo galay ka mid ah Turkiga oo xilligan ay si weyn isugu dhow yihiin madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyagana u tababaray ciidamo markaasi qayb ka mid ah, waxaana markaasi ay weli wadaan tababaridda ciidamada Soomaalida. sarkaal sare oo Turkish ah oo lagu magacaabo Sarjet ayaa sheegay in Turkiga ay markaa la macaamili karto musharax kasta oo noqdo madaxweynaha xiga ee Soomaaliya marka uu dhamaado muranka ka taagan doorashada Soomaaliya. waxauna si gaar ah u magacaabay 2 musharaxiin oo xilligan damacsan yihiin inay soo saaraan. hadalka sarkaalkan oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka bulshada ee lagu magacaabo Izmir ee magaalada Istanbul ayaa yimid iyadoo maalmihii dhowaan la tuhmayay in Turkiga ay markaasi hoose ula shaqaynayaan madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ciidamada Turkiga uu tababaray ee Gorgor iyo Haramcad u adeegsaday in lagu caburiyo mucaaradka. hase yeeshee sarkaalkan ayaa muujiyay in Turkiga ay sidoo kale xiriir dhow la leedahay musharaxiinta kale ee qaarkood. qaar ka mid ah musharaxiinta waxay xiriir dhow oo taariikhi ah la leeyihiin Turkiga, tusaale madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo labadaba la soo shaqeeyay Turkiga
ayuu yidhi sargaalkan. waxaana markaa aan u malaynayaa in turkiga awood u leeyahay inuu la shaqaysto musharax kasta oo noqon doona madaxweynaha xiga ee dalka marka muranka doorashada uu dhammaado ayuu yidhi. si kastaba sargaalkan ayaa sheegay in siyaasada turkiga ay ku wajahan ee soomaaliya ay tahay mid diiradda lagu saarayo horumarka dalka ee aanan qusayn shakhsiyaad gaar ahi. turkiga ayaa bishii tagtay walaac ka muujiyay xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay muranka doorashada soomaaliya, waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay ugu baaqday dhammaan dhinacyada soomaalida inay ka fogaadaan tallaabooyinka horseedi kara rabshado. sargaalkan oo magaciisa la yidhaahdo Sajed ayaa sheegay in saraakiisha turkiga ay hadda si dhowa isha ugu hayaan waxa ka socda Soomaaliya, waxaana markaasi la rumaysan yahay in sargaalkan uu sidoo kale soo bandhigay xogo hoose oo xilligan dowladda Soomaaliya ka qarsoon, waxaana markaasi sidoo kale uu soo bandhigay waxyaabaha ay xilligan danaha ugu waaweyn ee ay turkiga markaasi ka leedahay Soomaaliya. lama oga xaaladda siyaasadda Soomaaliya sida ay noqon doonto, iyadoo madaxda xilligan ee markaasi u hanqaltaagayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya in ay wax ka noqdaan, iyo sidoo kale madaxda mudaxileedkoodu dhammaaday ay xilligan si aada isugu hayaan arrimaha doorashada dalka. shirkan oo ay markaasi gadaal ka riixayso beesha caalamka ayaana la ogeyn qodobada ka soo bixi doona iyo sida uu u dawanaan karo shirarkii hore ee madaxweyne Farmaajo uu la qaatay madaxda dowlad goboleedyada dalka, waxaana markaasi inta badan la aaminsan yahay sida ay noqon karto xaaladda markaasi siyaasadda Soomaaliya oo inta badan maalmihii ugu dambeeyay isjijiid xoogan ka jiray. madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ayaa xilligan iyagu markaasi loo arkaa inay yihiin qaswadayaal dhinaca markaasi siyaasadda Soomaaliya oo hadba dhinacyo u kala rogaya. madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligan ku fashilmay qabsoomidda doorashooyinka dalka ayaa la rumaysan yahay in weli uu markaasi dhag jalaqa u siinaynin baaqyada ka soo baxaya dowlad goboleedyada qaar iyo dadka markaasi dhaliilsan siyaasadiisa. siyaasadda Soomaaliya ayaa xilligan markaa waxaa isugu darsantay in marka laga tago arrimaha doorashooyinka, iyadoo xilligan ay markaasi dadka Soomaaliyeed ay la kulmayaan caqabado aad u waaweyn oo ay ka mid tahay COVID-19 iyo sidoo kale abaaro ka jira qaybo ka mid ah dalka, iyo weliba ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka ayaa xilligan waxa ay sii xoojinaysaa murugada dadka shacabka Soomaaliyeed, lamana oga xaalka sida uu noqon doono, iyadoona markaa hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo xilligan dowladda Soomaaliya ay isku hayaan arrimaha gobolka Gado, oona markaa la rumaysan yahay in uu yahay ninka kaliya ee xilligan arrintiisa gobolka Gado ay u xayiran tahay doorashada Soomaaliya uu kulamo ka wado magaalada Muqdisho, iyadoona maanta mar la doonayo in uu ka qayb galo aaskal qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ugu baaqday sababo amni darteed, maadaama ay halkaasi tageen ciidamo daacad u ah madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Axmed Madoobe ayaa la rumaysan yahay in markaasi sababta ugu weyn ugu baaqday ay tahay in ammaanka garoonka diyaaradaha oo maanta isku halleen waayay, taasina ay sababtay in markaa aysan weli is-aaminaad ka dhex jirin madaxda dalka, gaar ahaan Jubbaland iyo weliba dowladda Soomaaliya. golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dhankooda markaasi la filayo in xaaladda Soomaaliya isu dul istaag ku sameeyaan ayaanan weli markaasi kulankooda qabsoomin, waxaana markaa inta badan kulamadooda la filaya in xaaladda siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ay si adaga uga hadlaan, bayaan adagna ay ka soo saari doonaan.